gabadhan alaab qaaliya oo aabeed leeyahay intay jibiso ayay gabar kale oo gurigooda shaqaalaha ka ahayd waxay ku dhehaysaa maxaad samaysay alaab qaaliyaha jibisay ma ogtahay alaabtaa jibisa qiimahooda intuu la egyahay midaana run intay u malaysay dhulka ka aruurine waxay maqlayaan marka aabihii oo soo socday kadib waxay ku dhehayaan meeshaan orod isaga taga aniga hagaajinayo uusan aabahii ku arkine kadib intay baxday alaabtan soo qaadanay kadib wixii ay jibiso dhan dhulka ka aruurine aabaheeda intuu u yimaado wuxuu ku dhahaa maxaa dhacay waxa qaylinaya maxay ahaayeen midii shaqaalaheena intay timaado iyadoo qira rabto oo dhihi rabta aniga jibi ayay waxay arkaysaa wixii dhan oo la aruuriyey midaana aabaheed waxay ku dhehaysaa tv-gan daawanayo waaye ee wax kale maahan waxa qaylinaya isaguna intuu dhaha iga gaabiyo meeshii isaga tagaa aabihii markii uu meeshii isaga tegay midii shaqaalaheed gabadhii u mahad celinay maadaama ay badbaadisay kadib midaan gabadha shaqaalaha waxay ku dhehaysaa maadaama aan ku badbaadiyey waxaan rabaa inaa hal wax ii samayso iyaduna waxay ku dhahay ii sheeg waa kuu samaynaya kadib waxay ku dhahay adiga dharkaaga soo bixi anigana dharkaygaa soo bixinaya kadib waa kala bedelanaynaa sababtoo ah aniga aabbahay mii ogolaanayo inaa bannaanka u baxo marka dharkaaga inaa ku dhuuntaa rabaa kadib gabadha shaqaalaha dharkeediiya gashanaya iyada dharkeedana gabadha shaqaalaha ay u gelinayay laabtoob ee iyadu laheedna intay soo bixisay u dhiibay waxay ku dhaheen meeshaan fadhiiso koofidaadana gasho lacalla hadduu aabbahay kuu imaado uu kula hadlo ha la hadlin hana u jawaabin xoogaa kadib markii ay midaan baxdo waxaa imaanayo meeshii aabbihiiyo socdo kadib isagoo u malaya qofkan sii jeeda inay gabartiisi taa iyo wuxuu ku dhahaa maanta yaa kaa dhaafa si wanaagsana u fadhisaaye wuxuu arkaa in aysan u jawaabayn oona soo fiirinayn kadib wuxuu u malaynaya in ay u xanaaqsan tahay intuu la soo fadhiisto wuxuu ku dhahaa gabadhaydiisa ma ogid in ay jiraan waxyaabo wanaagsan oo ka wanaagsan inaan gaari kuu gado adiga waxaad iigu xanaaqsan tahay waxaad rabtaa in aan gaari kuu gado anigana lacagtaydii oo dhan waxaan geliyey inaan isbitaal cusub dhiso adigana wax walba oo aad iiga baahnayd waa ku siiye oo ay ka mid yihiin guri iyo inaan ku geeyo waxbarashada ugu qaalisan intuu soo kaco dhabarkeeda istaaga markii uu arkay inaysan u jawaabayn isagoo u maleeya inay weli u xanaaqsantaho meeshii isaga tega xoogaa kadib waxaa imaanaya gabadhii oo sida saxda odayga u dhalay kadib dharkii kala bedelanaya kadib gabadhii shaqaalaheed waxaa u yeeraya aabbihii oo qaylinaya kadib wuxuu ku dhahaa fiideogan daawo ee ii micnay wuxuu yahay iyaduna markii ay fiideoga fiirisa waxay arkaysaa qof wata dharka shaqaalaha oo qolkiisa ku jira oo lacag xadayo kadib waxay ku dhehaysaa qofkan lacagta xadayo aniga ma ahan ee waa qof kale isla markiina gabadhiisa oo ordaysa imaanaysa waxay dhehaysaa dhegahaygi waa iga maqan yihiin odayguna wuxuu ku dhahaa muujidido midaanaa wadatee gabadha shaqaalaha odayga waxay ku dhehaysaa gabadhaada way ii timaaday kadib waxay igu dhahday dharka noo kala bedel ayadaana qolkaaga aado oo lacagta kaa xaday laakiin aabbuu gabadhan hadalkeeda ma dhegaysaay wuxuu ku dhahaa booliska isla xisaabtami doontiin gabadhiisana mar labaad ay gabadhii shaqaalaheed ka waalaysaa waxay ku dhehaysaa hadduu boolis kuu imaado baxar waaye ee hadda baxso nasiib xumadeedana iyadii oo baxsa rabto ayaa waxaa ka hor imaanaya aabbihii iyo laba boolis oo isla socda wuxuu ku dhahaa gabadhan waa qaban kartiin iyada oo la sii jiidayay odaga waxay ku dhehaysaa gaari makaa rabi ee lacagtaada isbitaal waa ku dhisa kartaa midkaan markii uu maqlo hadalka ay gabadhu dhahda wuxuu ku dhahaa istaag maxaa dhahda hadalka iigu soo celi waxay ku dhehaysaa qofkii markii meesha fadhiya oo laabtoob geysta anigoo ahay intaad ii timaadaa waxaad iigu dhahday gaari iska daa lacagta isbitaala ku bixinaaye gabadhaadana dharkeedii ii bedeshay waxayna igu dhahda waa kuu soo laabaha ay siiso odayga gabadhiisa saxdeed iyada oo lacagtii soo xaday oo gaarigeeda saaranaysa ayaa booliska intay u imaadaan waxay ku dhahayaan banuwa naga raali noqo boorsadaada waa inaan baarnaa inay diiday isku dayaysaa laakiin ugu dambayn way ogolaanaysaa boolisku markii ay boorsada furaan waxay ku arkayaan inay lacag ku jirto aabbuhu markii uu arkay inay gabadhiisa lacagtii ka xaday booliska wuxuu ku dhahaa midaan waa xiri kartiin bilooyin kadib odaygu gabadhiisii wuu soo daayey wuxuuna ka dhigay shaqaale gabadhii kale oo shaqaalaha ahaydna wuxuu ku bedelay booskii gabadhiisa wuxuuna u diray iskuul odayga gabadhiisana waa tanaaye gabadhii kale macasalaameynaysaa idinkana waxaynu ku dhehaysaa muuqaalka leegsaara soo dhowaada gabadhan waxay ka shaqaysaa dukaan lagu gado dharka aroosyada waxay arkaysaa marka gabar cuuryaamad ah oo dukaanka dhexdiisa dharka raadsanayso intay soo oroday dharkii ka qaadee waxay ku dhehaysaa naga raali noqo adiga camal dharkan ma gasho karaane midaana intay yaabtay waxay weydiinay ma waxaad ka wadaa dadka kursiga ku socda dharkan ma gasho karaan waxay ugu jawaabaysaa haa waa saxan tahay sababtoo ah dharkan aad u waaweyn yahay midaana intay xanaaqday waxay tusaysaa inay faraantii wadato ay mar dhow aroosi rabto waxay ku dhehaysaa marka hadda dharkayga ma ka dhex raadsan karaa meesha midaan kale markay aragto inay qoftan daacad ka tahay dhargadashaday waxay ku dhehaysaa anigaa kula raaraadinayo iyaduna waxay ku dhehaysaa aniga dharkan ma u baahni ee waxaan u baahanahay dharka ugu qaalisan oo ugu qurxoon oo aad haysiin intay dharkan soo qabatay waxay ku dhehaysaa nasiibaa leedahay dharkan waa midkii ugu dambeeyey nuuciisa oo kalena wuu naga dhammaaday midkan waa midkii ugu dambeeyey nasiibkii aa ka badatay ugu dambayna midaan dharkii markii la siiye way soo qaadaneen isla markiina waxaa imaanaya qoftan kale oo instagramka caanka ah kadib waxay dheheen waxaan rabaa dharka ugu qurxoon oo ugu qaalisan oo aad haysiin midaana qofta caanta waxay u sheegaysaa in gabadhaas kursiga ku socota ay qaadatay dharkii xabadii ugu dambeysay laakiin waxay ku dhehaysaa dhar kale oo kala kacsana yaallo aniga hadda kula raaraadinayo qoftan caanta waxay taagantay iga jooji aniga waxaas ma u baahni waxaan u baahanahay dharka ay gabadhaas qaadatay waa inay iga soo celisaa haddii aad sidaa samayn weysana dukaankiina waa ceebeena waxaana soo dhigaa inaana dadka macaamiisha si wanaagsan ula dhaqmin marka hadda ma baxaysaa oo qoftaas dharka ma iiga soo celinaya mase dukaankiina sumcadda ka hadlaya midaan dukaanka gadaysana qoftan caanta waxay u sheegaysaa inay wax yar lee sugto ee dharka u soo celinayso intay soo orday waxay ka daba imaanay gabadhii oo dharkii sii wadato kadib waxay ku dhehaysaa waxaan u baahanay inaad dharkan dib u celisho iyaduna waxay weydiinay
weydiinaya ma waxaad rabtaa inaad si xun iila dhaqanto mar kale. waxay ugu jawaabaysaa maya, si xuna ii fahantay, keliya waxaan soo ogaaday inuu dharkan aad u weyn yahay uusan kula ekeen. gabar kale oo shaqaala intay u wacday waxay dhehaysaa gabadhaan kula raadinayso dhar adiga kula eg. midaana ugu dambeyn way ku qancaysaa inay dharka dhiibto. xoogee kadib qoftii caanteed intay dharkii gashatay iyadoo dhehaysa soo umeeyka caruusada adduunka ugu qurxoon ayaa waxaa arkaya gabadhii kale oo kursiga ku socotay. intay xanaaqdo ayay gabdhihii kale oo dharka u raadinaya waxay ku dhehaysaa waxaan u baahanahay dharkaas maadaama aan anigu dharkaas markii hore aan arkay isla markiina aan gatay xaqaana u leeyahay. qoftii caanteedna waa tanaa dukaankaanay xayeysiinaysaa iyadoo dhehayso meeshan waxaa yaallo dhar kale kacsan ee kusoo dhowaada. midii meesha gadaysa intay soo qabato dharkii ay gabadhu wadatay ayay waxay u dhex gelinaya kursigii ay ku socotay taayeerkiisa. xoogaa kadib markii ay dhaqaaq maagtana dharkiyaa jeexmaya maadaama uu taayeerka ku dhex jiray. tanna fursadaasay ka faa'iidaysanaysaa intay soo orday waxay tusaysaa dharka meeshii ay ka jeexday. waxay ku dhehaysaa marka hadda waa ku qasban tahay inaad dharkan gadato, sharciyadaana waa sharciyada dukaankeena u yaallo. gabadhan kalena wax walba oo meesha ka dhacayo way u jeedda iyaduna wax kama qaban karto maadaama ay shaqadeeda u cabsanayso. midii kale oo kursiga ku socotana ugu dambeyn intay lacagtii bixisay meeshii isaga tegaya. kadib waxaa imaanaya qoftii caantaheed oo cabitaan dharkii ku soo haleysay. waxay dhehaysaa aniga dharkan ma baahni maadaama uu duuqayga ahayn. haddii aad diidiinna dadkayga waxaan u sheegaa inay meeshiinnu aysan meel ahayn. ugu dambeyn midii meesha gadaysay qoftii caanteedu way iska fasaxaysaa iyadoo aan lacag bixin. habeenkii markii la gaaray waxaa imaanayo ninkii meeshan oo dhan iska lahay oo xanaaqsan. midaana wuxuu ku dhahaa dukaankayga waa ceebaysay, fideogana ujeeday idaacadaha dhana hadalhaayo. gabadhii kursiga ku socotay ayaa idaacadda u tagtay. waxay ku dhahday dadkaas waxay ila dhaqmeen si bini'aadantinimada ka fog. waxayna soo bandhigtay markii ay dharka u dhex gelinaysay taayeerka. fideogaasna gabadhan kala dhiibtay maadaama ay wax walba dusha kala socotay. midii meesha gadaysay waxay taagan tahay qoftaana wax walba ka dambaysay maadaama ay fideoga iyadu dhiibtay. laakiin ninkii meesha iska lahay qoftan wuxuu ku dhahaa shaqada waa kaa buriyay, hadda kadibna meeshan kama shaqaysid. maalmo kadib qoftii caanta ee falowdii waa lagala laabtay oo washamsiya lagu qaaday. muuqaalkuna intaasu ku ekaada halkaas soo gaarta leegnoo saar. maamadan masaakiinta saaluunkan intay timaado ayaa naagti meesha iska lahayd waxay ku dhehaysaa tilaabo kale ha u soo qaadin saaluunkayga ee bannaanka iga baxintaa kuu jeedo. intay iskoobahan soo qaadatay maamadii waxay ku dhehaysaa meeshaan ma waxaad u malaysaa derbiyadii aad seexa jirtay orod ku laaba derbiyadaadii. maamadii intay lacag soo bixisay waxay dhehaysaa aniga lacagaan haystaa laakiin midaan qashin camalay lacagteedii u xaaqee. ugu dambeyn maamadii lacagteedii intay meeshii ka aruursatay meeshaan iyadoo fadhisa waxaa u imaanaya gabar kale oo saaluunka ka shaqayso. gabadhu markay aragto maamada meesha fadhisa waxay ku dhehaysaa mar way iga raali noqo. maamaduna gabadhan waxay u sheegaysaa inay meesha isaga tegayso. laakiin gabadhu waxay ku dhehaysaa wakhtigaa rabtid meeshan waa ka tegi kartaa ee iska joog. intay la soo fadhiisatay waxay weydiinay dhibaatada ku haysata maxaa waaye qof murugaysana u egtahe. maamadu gabadha waxay ku dhehaysaa aniga shaqaan helay, waxay igu dheheen marka interviewga imaaw. si aan interviewgaas u aadana meeshaana marka hore imaaday si aan timaha u hagaagsado. laakiin qofta meesha iskale si xunay ila dhaqantay waxayna igu tilmaamtay inaan ahay sidii qof derbi jiif ah. ugu dambeyn gabadhan maamada waxay ku dhehaysaa soo bax aniga ee raac, aniga timahaga kuu soo hagaajinayay. kadib labadoodu isla socda si wada jira waxay u soo gelayaan saaluun. qoftii meesha iska lehed ayaa iyadoo xanaaqsan maamada waxay ku dhehaysaa mar dhoweyta hadalkii aan kugu dhahaya miyaad ilowday. markaas aniga jaanis aan ku siiya laakiin hadda jaanis ma ku siinaya booliska kugu wacaa. laakiin gabadhii meesheeda ka shaqaynaysaa waxay dhehaysaa maamadan anigaa gudaha soo geliya, sharciga saaluunkuna waxuu dhigaa in qof kastoo martiya la soo dhoweeyo. maamadan oo bannaanka fadhida markii aan arkay waxaan u oggolaaday inay gudaha soo gasho anigoo fiirinaya sharciyada saaluunka. laakiin qoftaan meesha iskale waxay taagan tahay adiga si gooniya makuula hadli karaa. meeshaan intay la soo gashay waxay weydiinaysaa adiga ma waxaad rabtaa inaad shaqadaada kaa buriyo. iyaduna waxay ugu jawaabaysaa aniga waxaan raacayay sharciyada saaluunkan u yaalla ee dhibaato miyaa ku jirto. laakiin qoftan gabadha waxay ku dhehaysaa waxaan aad u jeedid waa ganacsi, si aad lacag u samaysana waa inaad ganacsigaada ka fogeedaa dadka noocaas oo kale ah. haddii dadka macaamiishaada ay dadka noocaas oo kale ay ku dhex arkaan ganacsigaaga, dadkaas ganacsigaaga dibdamba ugu soo laabo doonaan. gabadhaana qoftan waxay u sheegaysaa in dadka dhan si iskula mida ay ula dhaqmi doonto. intay ku dhahdo hadalkaaga haddii aad ku adkaysatay anaa indhahaga wax kugu tusaaya ayay meeshii isaga tegay. xoogaa kadib gabadhii kale waatanaa iyadoo timihii u hagaajinaysa maamadii maskiintaheed. maamada gabadha waxay weydiinaysaa adiga maxaad sidaa u samaysay ka waran haddii qoftan ay shaqadaada kaa buriso. waxay ku dhehay qoftaas beenteedu waa shaqada ma iga buri karto oo aniga ah qofka dukaankeeda ugu wanaagsan, anigana sannado ka hor waxaan ahay qof derbi jiif ah. ugu dambeyn maamada markii timahii loo dhameeyey aad ugu farxaysaa markii aragto sida timaheedii laga dhigay. isla markii qoftii meesha iska lehed intay timaaday gabadhii waxay ku dhehaysaa haddii aad dhammaysatay shaqadaadii sadaqad ahayd qoftan derbi jiifka u eg bannaanka iga bixi. sidoo kale adigana waa inaad qoftan hore u raacdaa maadaama ay maanta tahay maalintii shaqadaada kuugu dambaysay. laakiin middan waxay taagan tahay aniga maba rabi meel dadka sida loola dhaqmaa inaan kasii shaqeeyo. kadib maamadii intay soo istaagtay waxay dhehaysaa gabadhan meelay aadaysa ma laha, taas beddelkeeda beriyay soo laabanee weliba waxay ku fadhiisanaysaa kursigeeda kursi ka sarreeya. midaana maamada waxay ku dhehaysaa adiga timaha markii lagu hagaajiye ma waalatay. maamadu intay kaarkan soo bixiday waxay tusaysaa inay tahay qoftii saaluunkan iska lahayd, weliba saaluunkan keliya maahana saaluuno badanay leedahay. laakiin midaan maamada ma aaminaysa waxay ku dhehay haddii aad qoftaas aaleed way kuu dhaca lahayd. isla markiina albaabka waxaa ka soo gelaya laba qof oo ka mida maamada shaqaalaheeda. waxay
waxay ku dhehaysaa waqti fiicana imaateen waxaa maqaati ka noqon doontiin isbeddel cusub oo dhacayo. Tana waxay dhehaysaa isbeddel maxaa ka wadaa? Maamaduna waxay u sheegaysaa inay shaqada ka burisay. Iyada oo shaqadii laga buriyay weli sii doodaysaa waxay taagan tahay aniga waxaan ahay qofka dukaankaaga ugu wanaagsan. Laakiin maamadu hadalkeeda ma dhegaysanayso. Gabadhii kale waxay ku dhehaysaa qoftan inaa booska kala wareegto diyaar ma u tahay. Iyaduna ma diidaysa way ogolaanaysaa. Muuqaalkuna intaas ugu ekaaya dalka soo gaarta leegno saar.